بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داود يلي دلهانتي بميل كستو جوجتان كسو دوادا برنامج كيني دور جوجتا برنامج كيننا وحو كساب سنان دونا وبيغ اللي يراهدو مساي مارا webigan la yiraahdo Masai Mara waxa uu ku yaalaa dalka Kenya kumanaan duurjoog ah ayaa halkaasi ku nool Masai Mara wuxuu maraa laba wadan oo kala ah dalka Kenya iyo dalka Tanzania walow uu badan yahay dalka Tanzania waxa Masai Mara ku yaala seeraha la yiraahdo Safari waxa dariskooga ah oo la dirisa ama aagaasi degan dadka Masayga ah kani waa harimacad dhalay oo goobtan ku haysta dhalaan dhowr bilood jiray mas'uuliyad ayaa ka saaran cuntadooda iyo waliba ilaalintooda kuwani waa saddex yaryar ay hadda haysataa balse waxay dhashay lixdaasi oo saddexdani ay ka sii nool yihiin saddexda kale waxa iyaga ka dilay waraabayaasha iyo waliba libaahyada duurjoog badan oo isku jirta ayaa iyadu halkan daaqda Safari waa meel aad u ballaaran waxay leedahay goobtani caws iyo doog waxa dheegeeda ah oo ku dhagsan waa webiga loo yaqaano Mara biyuhu way sii yar yihiin waanay sii qalalayaan cawska laftigiisu wuu isbedelayaa oo uu sii dhamaanayaa inta badan harimacadkan waxay noloshiisu ku xidhan tahay iyo cuntadiisu duurjoogta goobtan ku nool hadda dhowr cisho waxba ma cunin waxaanu nuujinayaa waliba dhallaankiisa oo uga baahan cunto hadda wuxuu u diyaar yahay in uu cunto raadsado dhallaanka wuxuu kaga tegayaa goobta oo iyagu halkaasi ayay sii joogayaan inta hooyadood cuntada ku maqan tahay
iyagu goobtan ma dhaafayaan. Hooyadu waxay kala socotaa guudka, waxaanay jeedaalinaysaa duurjoogta halka ay ka ugaarsan karto. Harimacadku wuxuu diiradda ku hayaa koox deerooyin ah oo daaqaysa safaari, weliba aad ugu sii dhow. Kuwaasi ayuu doonayaa halka uu ka weerarayo in uu ogaado. xaggooda ayuu u dhaqaaqay. Hadda wuxuu bilaabay in uu ugaarsiga bilaabo. Harimacadku aad ayuu u dheereeyaa, xawaarihiisuna waa dheeryahay. Deerada laftigeedu aad bay u dheeraysaa oo siduu ku gaadha way adag tahay. Hadda waxba ma qabsan, waxbana ma soo helin. Waxaanu ku soo laabtay dhallaankiisii. Tani waa deero dhalaysa. Waxay halis u tahay ugaarsadayaasha. Mar kasta oo ay xayawaanada qaar dhalayaan, waxay ka hadhaan xayawaanada ay ka midka yihiin ee ay la socdaan. Hadda deeradani waxay ka hadhay deerooyinkii ay la socotay, maadaama ay rabto inay dhasho. Hadda gaar ayay u baxday, weliba waxay raadsatay meel u ammaan ah oo dhallaankeedanu ku badbaadi karo inta uu kacayo. Shimbirahani iyagu halkan ayay ku nool yihiin, balse wax dhibaato ah kuma hayaan. Labaatan minit ka bacdi ayay ku soo noqotay dhasheedii yarayd, waxaana isku dayaysaa inay nuujiso, kadibna ay dhallaanku ama dhashani raacdo. Waxay eegaysaa geesaha si aan cadowgu u arag. Dhowr daqiiqo ka bacdiba way dhaqaaqday dhashii yarayd, waanay daba gashay hooyadeed, balse waxaa dhibta ku haysaa waxa weeyaan weli cagaheeda ayaa jilicsan. Waxaa ku adkaanaysa dhaqaaqa faraha badan leh. Waa tahay daawadayaal, qaybteennii koobaad ee webiga Masai Mara ee dalka Kenya. Intaas ayaynu ku gabagabaynaynaa. Waa taxane la soco qaybta labaad iyo barnaamijkeennan.